السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن صاحب بدا هودا أنكو كلنا يوم. مغالك يا جماعة أنت وحاو كسب سنيهاي وحاو كسب سنيهاي نمن وحمة ريال oo aan horay uga soo hadlay muuqaalo ka horeeyay muuqaalkan oo laba aha kan waa muuqaalkii saddexaad nimanka siyaasiyiinta ah ee wax matarayaasha ah waxa ii wehliya maanta oo aan rabaa fariintaydan inaan gaarsiiyo ragga ka daba hadlaaya leh ragga ayaan la hadlin oo la dhaliilin raggaasu waxaan leeyahay arsaaqada nimankaas idinka gashay ilaahay ka barya ilaahay baa saxabada loo hoorsaday ilaahay wuxuu bixiyo ayaa baxsoon aadanaha ilaahay arsaaqadu isugu soo dhiibaa maahane waxa kale sameyn karaan ma jirto wixii samada laga qoray ayaa baxay waxa un baa ku qoran inta aadan dunidan imaan wixii lagu qoray ayaa ku qoran oo cunaysa calafkaaga noqono cunahaaga maray wax kale oo aad cunaysaa ma jirto laakiin waxa laga rabaa ilaahay inaad ku kalsoonaad ilaahay inaad tala saaratid xoogaaga iyo aqoontaada iyo maxaa la yiraahdaa xirfadaada ku meel martid qofna aadan u daba fariisanin wax aad adigu qabanayso maskaxda ka xurowdid ragale dadku way u kala baxay waa reer hebel iyo reer hebel intaan yare isku haysan oo la isku haay in la isku wada la rabo sidii basashii u fiiqfiiqay oo wax ii kala tatabiyo waad istaqaanaan codkiinana wuu duuban yahay ragga isoo wacay codkiina wuu duuban yahay haddaad mar kale sheekada ay la imaataan codkiina waan soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo waxan yareed kala qoqobaysaan anigu ima kala qoqobna beeshan anigu mid bay ii tahay wax aniga la yiraahdo reer hebel iyo reer hebel halka igama yaalaan waa mid kaliya waxa aan rabaana gabigood anay imatalaana waxaan rabaa haddaanay si hagaagsan noo matali karin hana daayeen faraha naga qaadeen hanoo dhigeen matalaadeena dhulka mid baan arkahay bal horta intaanan arrinkaasi galin muuqaalkan ila daawada haddaan dawladdiina hayna aan maanta idinku nimid casuumaadii iyo sida wanaagsan oo maartay gacanta furan oo lagu soo dhaweyseen waxaan idin ballan qaadaynaa in aan maartay meeshan aan idinku cidlayn doonin rasaas iyo daawo iyo adeeg bulsho iyo isbitaal iyo iskuul wax allaal waxa dawladda ka rabtaan ilaahay idinkiisana waa idin soo gaari doonaa waana heli doontaan waa ninka matalaada aad ka sugaysaan reerahan ayaan wax u qabanaa iskuulaan idin furaa dugsiya idin dhisa maxaa la yidhaha ceelal baan idin qodaa deegaan doorashadiisiina inuu wax qabta daaye mar kaliya talugta ma dhigin ninkaasaa wax laga sugaa walaalayaalow tol baan nahay reerkanow tol baan nahay tiisa daryeelaatu kala ku daraa la yidhi nin deegaan doorashadiisii waxba ka soo qaban waaye waxa ka suginina iska soo eriya meelahu sidii laxtuuga ah meermeerahayaa iska soo eriya war baxtaada wax u qabsada ilaahay baa dad iyo deegaan bay idinka deeqay ninkaas inuu wax idin qabto ilaahay baa deegaan iyo dad idinkaga deeqay kan wax qabashadiisa ilaahay baa dad idinkaga deeqay iyo deegaan waxba ka dhagaysanina waa beenaale aan tiisana wax u tareen tii dadkiisana wax u tareen meelaha iska wareega ma ogi ma aqaano ma beento faan may noqotay mise igu sawirtaa waxay noqotay ammaan iyo wax qabad war wax aadan qaban kari waa qabana hadhiin dadku been looma sheego beentaadu annagaa ka daba tagayna waan sheegaynaa wax qabad la'aantaada matalaad xumadaada iyo sidii laxtuuga inaad meelaha iska meermeertoodan waxba qabanin waa ku sheegaynaa kaagama xishoonayna cidda aan kaaga heebaysanayno oon kaaga baqayno ama kaaga xishoonayna ma jirto waa ku sheegaa waa ku soo bandhiga wax allayo waxaad samaysay meeshaad cagta dhigto saasaan raadka kuugu hayaa tooshan kuugu fiirinaya tooshkaygu cid kale ma qabto waa ninkaan la hadlaayo maxamuud abuukaato
maxamuud cabdulaahi dadkaanu matalaadii ay kaa sugaayeen way kugu khasaareen waxaan islahayn 5 sano hore waxbuu ku garawsan doonaa nimanka uu iska daba joogo oo iska daba socdo sidii dameero dhaan raacday waxbuu ku garawsan doonaayo khibradii waxbuu ka kororsan doonaa laakiin wax ku koror ma laha gu'maana garaad kuma kordhin 5 gu ee ku dhamaatay gugaas badacdaadu ku korortay maahana garaad kuma kordhin walaalkayow haddaadan dadku sida loo matala aqoon mise waa xirfad bay kaa noqoto shaqadii baa sidaa kaa noqotay siyaasaddu shaqaad u gashay ilaa profession kale ma lihide war haddaadan profession kale lahayn meelaha iska qaraabo oo iska wareeg ummadda culayskaaga iyo dhibaatadaada kala kortag kala hor wareeg dadku ceebahaaga iyo wax qabad xumadaada iyo waxtar la'aantaadu ma soo bandhigayno mana ku raadsanayno banaanka hadaa joogto waxa aan ku raadsanayno waa magac annaga aad meelaha ku marmarayso annagaadna matashaa anigaygaan kula hadlaayaad matashaa inta kale dhalinyarada ku dhaliishan baad matashaa inta ku ammaanaysa meelaha kaaga alalaasaysid qarashka ku siisid ama u hanjabtid ninka shaqada jooga shaqadan ka eriya aad leedahay ee sida kaaga baqaaya raggaas inta ku alalaasahay ayaad matashaa odayaasha ka aamusan baad matashaa marba odayaasha inaan dhaliilo laakiin odayaashu xilligan inay wax ku sheegaan inayna waxba ku sheegin waa isaga kaamid ilaa annagii dhalinyaro isla ahayn waxaan ku sheegnay baad qaadan laadahay waad og tahay inta jaareed isoo wacdo ismaqalnay adiga nin wax qaadanay hadaa tahay in badan baan wax ku sheegay 2017 dhamaadkeedii ilaa maanta wax ku sheegay wax ma maqlays dhaga laab u duleela male dhagaha guleertay u duleelaan xildhibaanka aad daba taaganta warka ka qaadato waa ogtaa marjacaaga halkaas ayaad reference ku ah laakiin ninkaasi intuu deegaan doorashadiisii ku geeyey wuxuu ku yidhi horta dhegayso wuxuu ku leeyahay waa kane idinka xildhibaanadii qaranka waxaan idinkaga baahanaa inaad dadkiina baraarujisiin cadowgaanaan iska kicinno oo madaxweynaha ee qaranka nagu baraarujiyaan qaadhaan xildhibaanada kalena waxaan rajayaa inay ugu dayo doonaan ee dhex jiifo doonaan ciddooda amba ha lagu dilo amba ha difaacaan haye warkiisu wuu cad yahay ninkan deegaankiisuu xoraystay dadkiisuu wax u qabtay wuxuu ku leeyahay qof walba oo xildhibaana deegaankiisa aadu dadkiisu ku dhex badbaadaa xildhibaan yuusuf kabaale runtiisi waa dadkiisu u dadaalay deegaankiisuu tagay adigu marna ma aadan dhigin cagta hal mar ma aadan dhigin cagta wax qabashana iska daa warniyow naga horwareeg wax qabasho iyo garasho midna ma lihi waxna ma qabanaysid war dadku waa la isku wadaa dadkiina isku wadi maysid waad kala firdhinaysaa haddaabad keentay inaad dadkii kala qaybiso reer hebel waay kan reer hebel waxaad igula hadashay waad ogta aniga adiga waxaan ku wada hadalna waad ogta khaa'in baa tahay tug oo beenaalaho meelaha warwareega dadkana been u sheegaa been ha u sheegin shalay waxaad taagneed meel cadallaa taagneed waad ka soo tagto deegaan kalaa tagtay tuulo kale iskuulaad iyo waxbaan idiin furaynaa goroomo idiin dhisaynaa waad cadallo ka lahayd halkaas sidaas oo kale shalay waxaad taagneed biyo cadde waxbaan qabanaynaa war wax aad qabanaysid iyo waxaad qaban kartid ma laha saatiisa daryeelaa tu kale ku daraa la yidhaha dadkaagu maxaad u qabatay horta ku kale haba kuu joogay dad kale haba ii ahaadeena meeshooday bal dadkaagu maxaad u qabatay waxaa qabatay mala walaalo wax aad qabatay ma laha wax lagaa sugaayana ma laha garashana ma lihid gargaraacashana ma lihid annaguna ma nihin kuwa kaa sugaaya ku aragnay ku barannay noogu kaa filan barasho 5 sano sanadkii 6 baa kuu socda waxaad soo kordhisay malaha walaalo waxaad soo kordhisay malahan odayaasha waxaan ugu baaqaa ninkaan shalay adinkaas keenay meeshaan adeerayaalow awowayaalow ninkaanu naga horwareejiya haddaanay ahayn magacow nagu matalo meesha wax lagu qaybsanayo qaybtaana ha noogu keeno haddaanu wax noogu qabanaynin naga horwareejiya ma rabo inaan anigu adinku wax idinka sheego xasha lillaah odayaashii baa tihiin adeeraad tihiin awowyaalaad tihiin idinku fogaan maayo wax idin dhihi maayo ninkaan adinkaan oo dooran annagu ma dooran meel intan fariisanay ma dooran adinkaa magaceena siiyo dusha u suray nooga soo rida ama sababtii loo doortay ha ka jawaabo deegaan walbo
xildhibaanadu iyadoo federaal leeyahay federaal horta waa maxay nin walba danaha deegaan doorashadiisu ama deegaankiisu ha ka shaqeeyo maalin gelinkeedna ma aragteen isagoo deegaankii laga soo doortay danihiisa soo ka shaqeynaya ma arag goronyoy gabal ku dhac maalin walba meel xilaa gabal ugu dhaca niman baa iska wata nin maxamed cajiin la yiraahdo iska wata nin xildhibaan yuusuf kabaale la yiraahdo iska wata dadkaas waa dadkooda wax u qabtay ku amaanan inay dadkooda wax u qabteen aniga waana maanay waana bogaadinay dadkooda wax u qabteen wixii dayacan oo meelaha dalanbaabi ku ahaana way duufsadeen oo way ka xisteen way ka xoqdeen kaarkooda laakiin niyahow nin la xoqda ha noqonin lagu xoqayba bal inta kuugu hartay deegaankaaga dib ugula soo noqo waa lagu marsaday kaarka waa lagu marsaday bal inta kuugu hartay bal deegaankaaga dib ugula soo noqo oo wax hadday garasho kuugu hartay deegaankaaga dib ugu noqo isagaa kuu baahan dadkaaga kuu baahan iyagaad magac ku betashaa iyagaad wax ku tahay haddaad isleedahay kursigan waa ku fadhidaa maanta cid uma baahnid wallaahi iyagaad wax ku tahay meeshaa tagtidba waxaa lagu leeyahay xildhibaankii reer hebel waanad og tahay waa ku fadhidaa xildhibaankii reer hebelaa tahay reer hebel ilaahay baa kaa dhaliyey cid kaa tiri karta ma lah anaan kaa tiri karin qof kalean kaa tiri karin ilaahay baa kaa dhali laakiin walaalow magacaas aad wadato waa magac sharfoon ummadda Soomaaliyeedna magac iyo mansab iyo wanaag ku dhaxle ha halayno ha bi'isayba bal inta hartay daba qabo caana daatay dabadood la qabay baa la yiri caana daatay waa la daba qabtaay bal isyar daba qabo oo dib ugu soo laabo deegaan doorashadaadii dadkaagii iyo dalkaagii iyo dadkaagiina iyo deegaankaagii bal waxtar tii kala kuu joogto ilan tilaab loo gudbaayo adiga hal mar baa rabtaa guri aad dhisaysid inaad dhakada ka soo bilowday dhakada meel lagama bilaabo hoos baa laga bilaabaa hoos ka bilow soco kor adaa ku tagaaya haye meelo badana kuu dayacan oo ku shansanaya leh xildhibaankaygii baan sugaaya aaway waxba lagaama haayo intaasi waxaan uga harayaa xildhibaanka maxamuud abuukaate ragga geela dabayaal baanu sii dabanaal ragga maxamuud abuukaate aan laga soo mari karin nin hebelow waad istaqaanaa haddaad maxamuud dhaliisho reer hebel baad dhaliishay ninka ilahow waxaan kuu sheegaa wax alla waxaan ku wada hadalna waa qoran yihiin isdaba qabo waxaan kugu xeerinayo kaaga aamusnayo waad og tahay anigu waxa fikradeyda igu jirto cid aan u daba fariisanayo ma jirto noolad adduunyadan dul saaran aan u daba fariisanayo afkaartayda ma jirto anu maskaxdayda xor baan u ahay afkaartayda xor baan u ahay ciddaan doonaan ku dhaliilaa ciddaan doonaan ku ammaanaa laakiin ammaanta lagu ammaanaa waa inuu yahay mid mutaystay haddaadan mutaysan maxaa lagugu ammaanaa walaal maxaa lagugu ammaanaa samayso horta waa la samaystaa ammaante cidlaha laygaga alalaaso cid ku alalaasaysaa ma jirto kuwa kuu alalaasayana maalin bay kaa soo hari doonaan warragow sidaan isu dhaama 2022 la mar dayaxa la higsanaya inaad nin asaaga ama nin aad dhali karto ugu yaraan 30 sano aad ka weyn tahay daba socotid ee tiraaha ma la hadli kartid ma yeeli kartid ma dhaliili kartid war adigu warna ka dhageysan ma kaana yeeli maayo qaado ama ha qaadani ii sheeg ma ii sheegin anu ciddan doonan dhaliila xor baan u ahay cidda adiga wax meel ku geysay cidda wax ku qabatay wax iga jira mala shaqaan ku leeyahay ma jirto adiga iyo danahaaga aniga iyo afkaartayda danahaaga xor u aho afkaartayda xor u ahaana waxna kulmi adiga waa taqaanaa intaas aan isugu imaano wax kale oo ka sokeeyo isugu imaan karno ma jirto هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت انا كبحين موقال كان الصحابة كحرا وحن كعدسنا سبسكرايب كسارة لايك تي شيرك موضوعا ايو موقالدان waa isdaba joog tani waa qaybtii saddexaad afaraad shanaad lixaad ilaa tobanaad ba soconaysa haduu ka hor ilaahay wax garadsiyo isbedelo waa walaalkeen awal dhaliisha yarun buu lahaay eena waa kaga harayna haduu iska tiro waayo waa ku wareena maalin walba ila dhangadeyn mayna waxba u sheegaynaa ma dhangadeynayno mana dhangadeyn karno haddii wax lagu sheegi jir walaalo wax waa ku sheeg
ومركي صدحات أنا هل كان كسر موقنا وحكوش شيء هدي هاي لقوا أولين جرينا قارك أولين سلا هوريك وقوش شيء ويكو أبجوجا هديك أولين هديك دينا يعني أنا أنت سانك عجب حياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.